We are hosting a big iftar dinner for our relatives and friends. Waxaan caawa afur weyn u sameynaynaa martigelin ama soo dhoweyn ama afur u sameynaynaa qaraabada iyo asxaabta. Host marka ereyga aan baranayno waxa weeyaan host waxa weeyaan waa martigelin weeyaan, marti soorid ama martigelin weeyaan. Relatives waa garanaynaa waa qaraabada weeyaan, adeerka iyo abti iyo eedo iyo wixii la midka ah weeyaan. Marka waxaa laga rabaa inaad qaybta commentiga aad ku soo qorto hal erey ama hal jumlo oo adigoo isticmaalayo ereyga host oo ah martigelin. Tenniskana iyo grammarkana iska hagaaji. Haddii aad ciyaaraha xiiseyso waxaad ka fikri galaysaa sida ay ciyaar kooxaha u martigeliyaan ciyaaraha ayaa ka fikiri karaysaa, iyo marxalado kala duwan ayaad kaga hadli karaysaa oo shirarka oo kale dowladaha ay qabtaan oo kale wax walba qof walba si walba loo martigeliyo, cunto oo kaliya ma ahan. Marka xafladaha oo kale waa martigelin weeyaan. Marka waxyaabahaas oo dhan ayaa ka hadli karaysaa. Marka host marka waxa weeyaan waa martigelin weeyaan. A big iftar dinner, casho ama casho sharaf ama afur sharafeed weeyaan. Alright, hosting macnaheedu waxa weeyaan waa martigelin. Relatives waxa weeyaan waa qaraabo weeyaan. Alright, qaybta saddexaad ayaan u gudbaynaa. Qaybta labaad ayaan u gudbaynaa dhihi lahay. Please help yourself. There is plenty of food for everyone. Please help yourself. Macnaheedu waxa weeyaan ha ismartiyeenin. Please help yourself. Waxaa si caadi haddii loo turjumay ay noqon karaysaa iscaawi ayay noqonaysaa. Iscaawi. laakiin anagu iscaawi ma isticmaalno Soomaalian. Waxaan isticmaalnaa ereygan isticmaalna Soomaaliga waxa weeyaan ha ismartiyeenin. Markaad qof ku dhiirigelinaysid inuu caadi iska dhigo oo wuxuu cuni karo cuno oo aan xishoodka iyo iska dhaafo kale. Waxaan dhahnaa waxaad dhihi karaysaa please help yourself ayaa dhahaysaa. There is plenty of food for everyone. Plenty waxa weeyaan waa in badan weeyaan. Waa ka soo hadalna Soomaalian. Plenty of food waa cunto badan weeyaan. Cunto badan. Fadlan ha ismartiyeenin waxa weeyaan cuntadu waa ay buuxdaa. Cunto badan ayaa taalo. Help yourself waxaan dhahnay ha ismartiyeenin, ha isjoojubin oo waxaad cuni kartid cun weeyaan. It's a polite way to tell the guest to take food. Waxa weeyaan waa qaab polite aad martida ugu sheegayso inay waxay cuni karaan cunaan. Plenty waxa weeyaan waa wax badan weeyaan. Wax badan weeyaan. Alright, codadkani insha Allah application-ka ayaad ka dhageysan doontaa. Sharing food with the poor is a great way to earn extra rewards this month. Inaad masaakiinta aad cunto siiso bishan Ramadaan waa qaab fiican aad ku heli kartid ajir fara badan aad ku heli kartid. Qaab aad ajir wacan ku heli karaysid weeyaan. Sharing food with the poor, inaad masaakiinta quudiso aad cunto siiso bisha Ramadaan, waxyaabaha ugu waaweyn ee bisha Ramadaan ay ku wanaagsan tahay waxa weeyaan waa in dadkii la afuriyo, cuntooyin la siiyo, masaakiinta la ogaado ayaa aad iyo aad loogu taliyaa Soomaalian. Marka ilaahayna ajir badan ayuu ka bixiyaa. Marka ajir badan ayaad ku helaysaa ayaa la dhahaa bishani, iyo mar walba aad qof masaakiin oo cunto siisid. Marka waxaan baranay sharing marka waxa weeyaan waa siin weeyaan ama la wadaagid weeyaan. Earning extra rewards waxa weeyaan ajir dheeraad inaad heshid. Hadda meeshaan waa ajir ayay ka turjumaysaa, laakiin rewards waxa weeyaan waa abaalmarin weeyaan. Abaalmarin waxay doonto ayay noqon karaysaa. Tusaale ahaan oo kale wax ka bara academy oo kale, students earn rewards for their hard work. Ardadu rewards ayay helaan ama abaalmarino ayay helaan markay dadaalaan. Isku day marka sidaas oo kale inaad jumlooyin kale aad ku soo darsato oo qaybta commentiga aad ku soo qorto. Good. Way noo dhamaaday quiz-kii. Haddii aad application-ka ku jirto waad ka soo shaqayn karaysaa. Haddii aad jeceshahayna markaad natiijada heshidna screenshot intaa ka soo qaado ayaa videogan hoostiisa kusoo share garay kartaa si ardada kale u arkaan. Wax ka baro academy soo dhawow waxa weeyaan waa platform aan luqadda Englishka aad ka baran karayso. Fadlan nagu soo biir, aad iyo aad baan kuugu baahannahay inaad nagu soo biirtid waana kama shalay doontid insha Allah. Alright, cashirka halkan ayaa ku gabagabeynaya. U diyaar garooba cashirka xigo iyo maalinta xigto hadduu Ilaahay ka raali noqdo.